kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba caalamka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena Sirdoonka siyaasadda oo aan daha kaga rogi doono qodobo ay ka mid yihiin mas'uuliyiinta maamulka Tigreega ee dalka Itoobiya ayaa waxa ay sheegeen in dagaalka ay kula jiraan xukuumadda Abiy ay ku soo biirtay dawladda Eritrea guusha madaxweynaha dhawaan la doortay ee dalka Mareykanka saameyn ma ku yeelan doonta dawladaha Turkiga iyo Sacuudi Carabiya dawladaha Armenia iyo Azerbaijan waxa ay kala saxiixdeen heshiis taariikhi ah horaantii salaasada maanta qodobada iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan u diyaar garooba barnaamijka fidsan aynu ku horeysiina madaxweynaha gobolka Tigreega ee Itoobiya ayaa shaaca ka qaaday in dawladda Eritrea ay ciidamo ka soo gudbisay xuduudda kuwaasi oo weerar ku qaaday ciidamada deegaanka xilli uu socdo dagaalka u dhaxeeya gobolka iyo kuwa xukuumadda Abiy tan iyo shalay ciidamada hogaamiyaha Eritrea Siyaasa Afwerki waxa ay ka soo gudbeen xuduudda dalka waxayna qabsadeen dhulkeena ayaa uu yiri dabarsha Gabrameeshal oo ah hogaamiyaha gobolka Tigreega waxay naga soo weerareen dhanka Humeera iyaga oo adeegsanaya hub culus ayaa uu yiri dabarsha Gabrameeshal hase yeeshee sooma bandhigeen wax cadeym ah oo ku aadan ciidamada Eritrea u talaabay dhanka Itoobiya dhinaca kale dawladda Eritrea ayaa beenisay in ay ciidankeeda ku soo biireen dagaalka iyaga oo taageeraya ciidamada dawladda federaalka Itoobiya kan waa dagaal gudaha ah qaybna kama nihin waxa sidaas yiri wasiirka arrimaha dibadda Eritrea Osman Saalax oo la hadlay wakaaladda wararka ee Reuters dhanka kale ururka midowga Afrika ayaa ku baaqay in wada hadal lagu dhameeyo xiisadda ka jirta dalka Itoobiya oo muddo toddobaad socota gudoomiyaha midowga Afrika Muuse Faki Mohamed waxa uu codsanayaa in si degdeg ah loo joojiyo dagaalka waxa uu ku baaqayaa dhinacyada dagaalamaya in ay ilaaliyaan xuquuqul aadanaha isla markaana ay xabadda joojiyaan oo miiska wada hadalka ku xaliyaan ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay ururka midowga Afrika dhanka kale ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed Cali ayaa wacad ku maray in dagaalka aan la joojin doonin ilaa meesha laga saaro xoogaga xisbiga xukuumadda Tigreega ee loo yaqaan TPLF xiisadda Itoobiya ayaana waxay u muuqataa in ay tahay mid faraha ka sii baxday waan filaa inaad wax badan ka fahamteen wixii wareey ku soo kordhay waxaad ku daawan doontaan wararkeena dambe bal iminkana aynu eegno guusha Biden uu gaaray ma waxa ay saameyn ku yeelan doontaa dawladaha Sacuudi Carabiya iyo Turkiga waxyaabaha isha lagu hayo marka uu xilka la wareego madaxweynaha la doortay ee dalka Mareykanka Joe Biden oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga waxa ka mid ah siyaasadiisa ku aadan bariga dhexe iyo sida ay u dhaboobi doonto hadallada uu yiri intii uu ololaha doorashada ku jiray Mr Biden ayaa sanad ka hor mar uu ka qayb galay dood loo qabtay musharaxiinta xisbiga dimuqraadiga ee la doodayay in ay xisbiga ku matalaan doorashada madaxtinimada waxa uu hadalkaasi ku soo bandhigay aragtidiisa siyaasadeed ee ku aadan bariga dhexe ama Sacuudi Carabiya Biden oo ay dooda kala qayb galeen musharaxiinta kale ee isla xisbigaasi ayaa mar wax laga weydiiyay dilkii wariyihii Jamal Khashoggi iyo dagaalka dalka Yemen ka socda oo ay hogaaminayaan xulafada Sacuudiga waxa uu sheegay in haddii uu madaxweyne noqdo aanu marnaba hilmaami doonin dilkii Khashoggi iyo dagaalka ka socda dalka Yemen Khashoggi waa la dilay oo waa la jarjaray waana aaminsanahay in uu amray dhaxal sugaha Mohammed bin Salman waxaana cadeynaya in aanan wax hub ah oo dambe aanan ka iibin doonin Sacuudiga waana ku ciqaabi doona arintaasi ayaa uu yiri Mr Biden waxa kale oo uu sheegay in uu kula xisaabtami doono caruurta iyo dadka aan waxba galabsan ee lagu laayay dalka Yemen ayaa uu yiri Mr Biden oo ka qayb galay dood musharaxiinta xisbiga dimuqraadiga loogu qabanayay oo laga baahiyay telefishinka NBC inkastoo dad badan ay u arkayeen isu soo dhawaanshaha Sacuudiga iyo xukuumadda Trump ay wax badan dabooshay oo ay ka mid tahay dagaalka Yemen ayaa haddana sida muuqata Biden waxa uu horey u sheegay in aanu wax dulqaad ah u hayn doonin taliska Mohammed bin Salman madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden ayaa sidoo kale markii la doortay waxa aad baraha bulshada ee dalalka Carabta loo wadwaday hadal uu hadda ka hor ka sheegay hoggaanka dalka Turkiga oo xilligaasi tilmaamay in uu ka shaqeyn doono sidii loo xoojin lahaa mucaaradka dalka Turkiga muuqaalka Biden uu ku sheegay hadalkaasi waxa sidoo kale baahiyay warbaahinta maxalliga ee gudaha dalka Turkiga waxay ila tahay in waxa aynu ka yeelayno Turkiga ay noqoto hab ka duwan sida hadda aynu ula dhaqanno dawladda madaxweyne Erdogan waana in aan taageernaa mucaaradka dalkaasi iyo kooxaha Kurdiyiinta ee dalka Turkiga ayaa uu hadalka hadda ka hor Biden sheegay
waxa uu kale Mr. Biden xilligaasi soo hadal qaaday sida uu uga walaacsan yahay gantaalaha ridada dheer oo Turkigu ka soo iibsaday dalka Ruushka isaga oo sheegay in haddii Mareykanku uu wax hub ah ka iibinayo Ankara uu marka hore la eego sida ay wax u socdaan. Hadalkaasi waxa ka falceliyay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Turkiga oo ka mid yahay afayeenka madaxweynaha dalka Turkiga Mr. Fatih oo sheegay in ay tahay wax ka fog dimuqraadiyadda. inkastoo hadallada Mr. Biden uu jeeday ay ahaayeen xilli ololo doorasho haddana lama oga waxa ay noqon doonto siyaasadiisa bariga dhexe oo ay isku hayaan xulafada Sacuudiga, Iran iyo Turkiga oo dhinac ah. doorashada Biden ayaana ku soo aaday xilli dalalka Carabta ay xiriir diblomaasiyadeed la sameysteen dawladda Israa'iil arintaasi oo uu dadajinayay madaxweynaha laga guuleystay ee Mareykanka Donald Trump. wixii waray ku soo kordha waxaad ku daawan doontaan wararkeena dambe bal iminkana aynu eegno heshiiska xabad joojineed ee taariikhiga ah ee ay gaareen dalalka Armenia, Azerbaijan iyo Ruushka. Armenia, Azerbaijan iyo Ruushka ayaa kala saxiixday heshiis lagu soo afjarayo iska horimaadkii military ee ka dhashay dhulkii lagu muransanaa ee Nagorno-Karabakh. Ra'iisul Wasaaraha Armenia Nikolay Pashinyan waxa uu heshiiskan ugu yeeray heshiis aad ugu xanuun badan isaga iyo dalkiisa. waxay timid kadib 6 toddobaad oo dagaal uu u dhaxeeyay Azerbaijan iyo qowmiyadda Armenia. gobolkan waxa caalami ahaan loo aqoonsan yahay in uu ka tirsan yahay Azerbaijan laakiin waxa maamulay qowmiyadda Armenka tan iyo 1994 xilligaasi oo ay Armenia dagaal kula wareegtay. tiro heshiisyo xabad joojin ah ayaa la dhexdhexaadiyay tan iyo markii uu dagaalku dib uga qarxay gobolka Qowqaaska laakiin waa ay fashilmeen. heshiiska cusub ee Azerbaijan waxa ay qaybsan doonaan aagaga Nagorno-Karabakh oo ay qaadatay intii ay socdeen isku dhacyada Armenia waxayna sidoo kale ogolaatay in ay ka baxdo dhowr meelood oo kale oo ku dhow toddobaadyada soo socda. madaxweynaha dalka Russia Vladimir Putin ayaa intii uu ku guda jiray khudbadiisa khadka tooska ah ee telefishinka laga sii daayay ayaa sheegay in 1960 askari oo nabad ilaaliyaal ah oo Ruush ah ay ka rondayn doonaan halkaasi. Turkiga ayaa sidoo kale ka qayb qaadan doona howlaha nabad ilaalinta sida uu sheegay madaxweynaha Azerbaijan Ilham Aliyev oo ku soo biiray madaxweynaha Vladimir Putin intii uu ku socday khudbadiisa. madaxweyne Putin waxa uu sheegay in heshiiskan ay ku jiri doonto isweydaarsiga maxaabiista dagaalka lagu kala qabsaday iyadoo ay dhammaan xiriidhada dhaqaalaha iyo gaadiidka laga dhigayo kuwa aan la xireynin. madaxweyne Aliyev waxa uu sheegay in heshiiskani uu yahay mid taariikhi ah oo dalkiisa u soo hoyday. Ra'iisul Wasaaraha dalka Armenia Nikolay Pashinyan waxa uu sanadkiisa sheegay go'aankani uu ku saleysan yahay falanqeyn qoto dheer oo ku saabsan xaaladda dagaalka iyo wada hadallada ee ay la yeesheen khubarada ugu fiican ee dhanka militariga. magaalada Yerevan ee caasimadda Armenia waxa isugu soo baxay dadweyne aad u fara badan oo ka careysan heshiiska sida ay sheegtay warbaahinta gudaha waxayna jabsadeen baarlamaanka iyo dhismayaasha dawladda iyaga oo ku qaylinaya isma dhiibi doono. waatay daawadayaal wixii waray ku soo kordha waxaad ku daawan doontaan wararkeena dambe tan intaan markaa xiga dib u kulmi doono waxa idinkaga tagaya sida ay nabadgelyo.